بسم الله الرحمن الرحيم كل طبعا ونكسن داوديال meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka arimaha subaxnimaha maanta nagala socotaan TV-ga New Africa qaybtiisa afka Soomaaliga soo wanaagsan bal barnaamijkan waxa kale ila taahinayo walaashida Amira Cabdi Sattar uu mahadsan tahay maanta barnaamijkayga wuxuu ka hadlay doonaa faahfaahinta wararka iyo arimaha bulshada iyo qaybta ciyaaraha bal ku soo dhawaada arimaha wararka waxay ugu koobnaayo iyago daawasho wanaagsan bal ku soo dhawaada warkiyo kooban daawadayaal daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka faahfaahinta wararka ee saaka aroornimo waxaan faahfaahin doonaa warka ugu horeeya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya bal sidaan ognahay guud ahaan daawadayaal meel walba joogtaan warkiyo marka dhameystiran ama faahfaahsan sidaan ognahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo haatan ama ku sugnaa waqtiga hore magaalada Baydhabo ama gobolka Bay haatan u gudbay dhanka iyo Bakool sidaan dareemayna ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayri iyo dadaalkiisa iyo wareegiisa mar walba meelaha uu tagi jiray ama guud ahaan Soomaaliya meel walba ku nooshahay asagoo markaa dareemsiinaya ama sawirkaba ka muuqdaba inta dhalinyarada meesha ku nool meel walba joogaan ay jecel yihiin ra'iisul wasaaraha asagoo markaa aan ka faaneynin markaa tawaaduc iyo mar walba iltizaam oo ku socdo taas ay u sababtay ra'iisul wasaaraha qof walba magaciisa maqlo maanta inuu ama baad dhanka iyo iclaanka guud walba oo ka jeclaado Amira sidaan ognahay ra'iisul wasaaraha iyo socdaalkiisa iyo meel walba meesha uu gudbayo bal salama dhigi karo ra'iisul wasaaraha dadaalka wuxuu wada dadaal markaa muuqda guud ahaan markaa Soomaaliya isku soo celin kartaa wala oran karaa kaligeena ra'iisul wasaaraha ma socdo Cabdi Sattar wuxuu wada gudi ama waxa la socdo wasiiro xukuumadda ka socda iyo madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdi Casiis oo de kulmadaas Bakool ay ku aadeen ay dadka waxay la wada tashanayaan sidii ammaanka ay u faahfaahin lahaayeen iyo doorashooyinkii iyo dadkii Bakool aad bay ka soo heleen de wasiirkii visitkii uu meesha ku sameeyay sidii wasiiradii kale waqashadii bay ay ku soo dhaweeyeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya federaalka Soomaaliya tada labaad ra'iisul wasaaraha dadku waxay ku ammaanaan inuu dalkii ammaan inuu ku fidinayo tada labaad wuxuu sameeyaa kale inay shacabku ku soo dhaweeyo xukuumadda uu ku soo xiro xukuumadda bal sida ka dhawaajisay guud ahaanba ra'iisul wasaaraha iyo dadaalkiisa iyo qaabka hore shacabka iyo xukuumadda inuu ka wada dhigo wada jir laanu mar walba shacabka xukuumadda waa shacab hadii shacab la waayo xukuumad ma jirayso meesha marka ay lagu dhaqi lahaa
nidaamka iyo guud ahaanba iyo dowladda jecelka laakiin sidaan ognahay ra'iisul wasaaraha shafaafiyadiisa iyo guud ahaanba qaabka shacabka ama qaabka marka dowladaha guud ahaanba wax la wadaagayo meesha wuxuu ku qeybiyay in wararkii ugu dambeeyay maanta ee 1,150,000 oo dollar dhanka asagoo marka ku bixiyay ama siiyay gudoomiyaha ama ra'iiska dowlad goboleedka koonfur galbeed guud ahaanba marka laftigareen taasoo marka kaga gudoomay ayagoo marka goobjoog ay ka ahaayeen guud ahaanba golaha wasiirada iyo marka shacabka ayagana marka sida doon guud ahaanba ay ogaayeen guud ahaan bal inaan u gudubno dhanka iyo qabarkii labaad ama warkii labaad magaalada sida ogtahay Cabdi Sataaro magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Bakool Hiiraan ayaa waxaa kulan la yeeshay ciidankii Soomaaliya iyo Amisom ayaa kulan halka ay kulan ku yeesheen xarun ay Djibouti ay ku leedahay meeshaas shirkaas oo ay ka wada falanqeynayaan sida ay uga hortagi lahaayeen xarakada al-shabaab taasoo ay laga bilaabayo galmudug iyo galmudug ay kasoo bilaabayaan iyo gobolada Soomaaliya intii ammaankeedii ku sugmatay saa loogu dhaqaaqi lahaa xarakada shabaab dadka Cabdi Sataar maana soo oran karin intay dagaal ay meesha ka ridi lahaayeen waxa ka fiican iyagoo wada hadal la sameeyo al-shabaab sidaan ognahayba ama sawirka qaabka ka muuqda maanta markii la feeriyay labada gol ay wada kulmay dhanka Amisom iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya marka hata ku sugan dhaga iyo beledweyne waxa u maleysaa kulli in Soomaaliya oo kaliya aan la kala saari karin guud ahaanba laakiin hasaba ahaatay qof walba wuxuu ku socdaa sharci gooni ah laakiin dadaalka ay muujinayaan ama guud ahaanba marka ay wadaan labada dhinacba Amisom iyo dhanka iyo xoogga dalka ee Soomaaliya waxa u muuqata dhanka inay rabaan meesha nabadgelyo inay ka muuqato maadaama meesha ay tahay gobol Soomaaliyeed ee mar walba qof walba maanta dhalinyaro ah ama hooyo Soomaaliyeed ama aabbo Soomaaliyeed ama awood Soomaaliyeed meesha haduu ku dhaawacmo guud ahaanba marka ay soo noqonayso dhibaatada dhanka iyo dawladda iyo shacabka marka meesha ku nool mas'uuliyadda marka guud ahaanba dadka qaaday laakiin guud ahaanba marka fiirino taa waa mid wanaagsan dadka inay wada tashtaan wada fariistaan oo ayna kala faanin kadib marka waxa soo baxayo xoog wada socda oo isku wada janqaad guud ahaanba marka wada fiiriya danta iyo dalka Soomaaliyeed guud ahaanba markaana ha gudubno dhanka iyo warkii ee ugu dambeeyay dhanka iyo ugu qiimaha badnaa ama ugu xasiisna badnaa dhanka iyo Kenya Amira bal Kenya waxa malaysaa ilaa hadda Soomaaliya inay ka harin wada marayso in dil mar walba u geysanaysa ayada marka oo aar sheeganaysa qof hebel sidaas sameeyay dartiisi waxa uu dilna hebel ama walaalkiisa ama adeerkiisa bal in dilka maanta qofka ruuxa Soomaaliga lagu dilo Kenya ma qof u qalma marka la dilo in iska dilo qofka Soomaaliya shacabka qofkan waa iska dileen Cabdi Sataar haddaan faahfaahino aslan wiilkan walaalkiisii bay hore u dileen 30 bisha tobnaad ee sanadkii hore ayay walaalkii ay dileen hadda sanad bishii hore ayay 30 August ayay wiilkan la dilay wiilka ay walaalihiin wiilkii hore ee bishii tobnaad ee 2018 la dilay wiilkaas waxa loo dilay falal waxa la leeyahay falal argagixiso oo la qarxiyay hotelka dowladda Nairobi ku yaalay Delson 2 taasoo sababtay inay raadin reerka wiilkii hore la dilay reerkiisa oo dhan la raaciyo hadda walaalkiisa ayaa wax la isleeyahay ayaa falka argagixiso kale oo xarakada shabaab inuu ku jiro saadirteed ayaa wiilkii wax la islahaa qabashadii wiilkii uu diiday inay la qabto labaad wuxuu sameeyay inuu la dagaalamo ciidanka taasoo keentay in la dilo wiilka bal guud ahaan markaan fiirino guud ahaan Kenya iyo waxay hadda ku dhawaaqaysa ama dilka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool dhanka iyo Kenya sidaan ognahay Kenya waxa ku nool in badan ee shacab Soomaaliyeed marka ku dhaqan ama ha qaataan jinsiyadda Kenya ama ha ahaadaan kuwa marka jinsiyadda Soomaaliya guud ahaan wata laakiin sidaan ognahay saraakiisha Kenya ma ahan waa markii ugu horeysay ama ay ku dilayso ama ay ku boodiyeyso qof Soomaaliyeed ama shacab Soomaaliyeed ku nool sidaan ognahay Kenya markii rabtay inay ka baxdo dhanka iyo Amisom Soomaaliya ka soo baxday dhanka iyo gado waxay ku dishay
wax cad markaa dadka u muuqda saraakiil Soomaaliyeed ee markaa ku sugnaa xuduudda u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya kadibna xitaa qaarkoodna ay hore u sii wateen taa waxay ahayd markaa sanadkii hadda la soo dhaafay guud ahaanba qof walbana markaa warbaahinta ku xiran taa uu la socday haddana waa u jeednaa mar walbana waxay ku era sheeganaysaa inay dilayso qof walba ay disho waa argagixiso waa al-shabaab taana waxaa u muuqda in Kenya ay rabto in Soomaaliya wax walba ay kaga gacan sareyso dhanka iyada u fiirinaysa cadaawadii ka dhaxaysay dhanka iyo badda ee dacwadii markaa u dhaxaysay Kenya iyo Soomaaliya ee markaa ugu dambeeyaba madaxweynaha Kenya asagoo markaa canaananaya ama hadal xun ka sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Cawad asagoo ku sheegay inuu yahay qof markaa waxba ka ogeyn siyaasadda ama guud ahaanba xer ilaaliyaha ama u doodaya Soomaaliya inuu yahay qof markaa waxba wax ka ogeyn laakiin markaa Kenya dhibaatada markaa dalka Soomaaliya ama ummadda Soomaaliyeed ee ku gumaadayso ama ay ku wado markaa taa waxa u tashanayo qof walba Soomaali meel walba oo jooga ama shacab walba markaa ka damqanayo ummadiisa meel walba ay ku nooshahay laakiin Kenya maxaa la dhihi karaa Amiira ma waxay rabaan Soomaaliya inay gumaadaan mise xaaladda badda oo kaliya ku ekaanaysa arinta Cabdisataar wasaad ogtahay Kenya waxay wadaa caradii ay markay xukuumka lagu soo riday in iyadu gardaran tahay ay dadweynaha ay u cadaatay in iyadu badii Soomaaliya damac weyn ay ku jirto hadda waxay sameynaysaa gumaadida shacabka Soomaaliyeed si ay ugu dhafoortaabato xukuumadda Soomaaliya ay dadka Soomaalida ee barakacay ay dib ugu soo celiso dalkooda si ay u dareemaan inay Kenya amaanaan ku hayn laakiin aniga waxaan isweydiinayaa qolada qaramada midoobe iyo xuquuq bini'aadanka ka hadla maxay uga hadli waayeen arinta bal sida ogtahay marka qaramada midoobe xuquuqda aadamiga marka sheegno guud ahaanba Soomaaliya waan ognahay waa dal muslim ah waa dad hal luqad ku wada hadla waa dad dhankooda ama dhanka iyo Soomaaliya ku beegan kheyraad fara badan sidaan ognahay Soomaaliya oo kaliya waxa marta labada bad lanqaad cas iyo dhahan luqada Carabiga ku dhahan maxay Hindiya dhanka iyo badweynta Hindiya ay marta labada dhinacba Soomaaliya waxa la ogyahay in wax fara badan dhanka iyo ku sugan in muhiim u tahay meel walba ama dal walba muslim ah marka Sharqul Awsad ama marka loo fiiriyo dhanka iyo muslimiinta ku nool Afrika iyo Carab labada dhinac marka loo fiiriyo sida darteed Kenya yaa soo diray yaana markaa ku gacan seeray yaana mar walba ay ku taageeray arinka waa cadahay waa dalka Ingiriiska oo markaa Kenya asaga gumaaday ama gumeystay mar walbana Kenya waxay rabtaa ama horumarkeeda ay rabtaa ayada marka asayid marka ay ku tiirsanayso guud ahaanba laakiin marka loo fiiriyo qaramada midoobay iyo dadka xuquuqda aadamaha u doodo haday rabaan Soomaaliya inay wax ka qabtaan marka hore kuma dar lahayn Soomaalida ku nool Kenya kuma dar lahayn kama dhigaleen dad Kenyaati marka Kenya lagu daray maxaa yeelay sidaan ognaa codka marka loo qaaday dadka ku nool Kenya guud ahaanba Soomaalida dhanka iyo gobolada Soomaaliya ku nool marka cod loo qaaday waxay doorteen in la raaciyo Soomaaliya laakiin qaraar ka imaada dhanka Ingiriiska ama guud ahaanba waxay noqotay in Soomaaliya lagu daro Kenya waxa jirtay شاعر من أبوان الصومالية قري أو دحي قسموك قمسا بعد قمسة حالة لتغيب عنك القوة السمحاء تاسوحي عدينيسا لبدا قف الروائن مهمة وين قف كمركا إنسان كصومالي الروائن لوجو ماذا كأيو إن وهجا كداود يرسلن أجنه هيبا أرمها كيني صومالي هدار ربنا كهذا المانت ما أهن أرين هالكان لو سوق هو بيكر قف والبشعب صومالي وين أجي حالة كون إن بالقدر الحيسين اسكسون قشوا عن داود يلا مسكح ليلة علمية ومشغول
waa hagaag daawadayaal mar labaad iyo mar saddexaad kusoo dhawaada barnaamijka aad nagala socotaan TV-ga New Africa qaybtiisa afka Soomaaliga ee subax laha ama subax wanaagsan guud ahaan baynagu talagashay TV-ga bal barnaamijka haatan waxaan u gudbaynaa dhanka iyo qoyska iyo bulshada bal Amira maxaa noo haysaa Cabdisataar waxaan idin maanta u haynaa bulshada Soomaaliyeed oo dhan qosolka faa'iidada qosolku jirka u leeyahay iyo wuxuu jirka u geysto waxaa laga yaabaa qosol markaa dhacday bal ani xitaa qosolka inuu yahay bal faa'iidada qosolka haddaan ka hadalno waxay faa'iidada u leedahay jirka wax fara badan qofkii murugaysan hadaa waxaan kule laga qosliyo murugadii baa ka baabaada qofkii warwar hayo hadaa laga qosliyo warwarkii baa ka yaraada qaybta ma aragtay marna waxaan gelinaa qaybtu jirka u fiican qaybtu jirka ugu fiican xagga wadnaha ayaa wax la qosolka fara badan aad u fara badan wuxuu sameeyaa inuu wadna xanuun dadka u sameeyo waayo wadnihii aad buu shaqeynaa qofkii sida qof naxdin oo kale hesho ayuu wadni aad buu shaqeynaa xididadii markaa ma karayaan dhiigii uu wadnihii fidinayo marka qofka waxa ku dhaca wadna xanuun taa labaad waxa faa'iidooyinkiisa markaan ku noqono faa'iidadu wuxuu leeyahay jirka wajiga marka islaamahayaga hadii markasta ay qoslayaan wajigu buu dhisayaa leeyahay xataa odayaasha wajigu buu dhisayaa leeyahay waayo qosolka wajigu fiican yahay markaan soo gudubno dhanka iyo qosolka Cabdisataar sidoo waqtihay qofka marka la yiraahdo uu qoslaya oo faraxsan yahay ma qof kasta oo qoslaya oo faraxsan inuu faraxsan yahay wadnaha ka faraxsan laakiin marba dad waxa jira bulshaawiina isagoo dib kasta ay hayso iska qoslayo يعني waxaa leedahay insaanka mar walba oo laazima inuu farxada muujiyo ama umada marka u dholo cadeeyo waxay ahayd xadiidkii ahaa waxay ahayd oo tabasumka fi wajhi akhika sadaqa yani qofka marka insaanka muslimka ama walaalkiisa ama Soomaaliga ama luqadiisa ku wada hadlayaan maanta markuu hor istaago ama reerkiisa markuu ku dhex jiro bal Amir qosolka dhankiisa ku noqday waxa jira dad markay dibadda joogaan ay qoslayaan markay gudaha tagaan ama guriga tagaan وجهي كلا لا صوب حين dadka maxaa la dhigi karaa gudaha oo guriga markay tagaan ayaa waxay sameeyaan san arkayno ubadka awal marka ugu horeysa ubadka guriga markay joogaan waxay yareeyaan problemka aad u far badan oo haysta xaafada hada qoyska cusub waxa la yiraahdaa ninkeena isma fahmaan marka ugu horeysa laakiin inuu marka uu dhasho كلا عرسني كلا عرسني سجى هشيسية وقصل كيس ما ركتي فرحات أيام موجينسا يعني وحلا هاي حتى يعني سيدا كوسو قالتي نيكي هناك تركيسي حلايا قصر كرفتر كيسينو فايدة ولا فايدة بدن ولا مركي يعني وحلا هذا جوري مركي قوس كي يقول إنه لين لو أكليين حاسكيه أما حاسكيه مركي لو أكليين وحلا هذا قصر كحقه يكون بدنا ما qosolka hadii mushkilada dhex joogto ma aragtay ayaa qosolkaas wuxuu fiican yahay dadkii buu fiican yahay waa wuxuu baabiinaya caradii meesha joogtay iyo waxa la yiraahdaa ma aragtay power baa jira power oo dadka wax ku leeyahay power meynaysa oo dadka waxaan ku leeyahay carab fara badan ku sameeya kaasoo yareeya qosolka iyo ilmaha yareed guriga jooga oo qosolkiisi حتى dadka farabadan weeydooda dadka bulshaawiinta ma aragtay qof haduu hada Cabdisataar ku yimaado oo ku qoslo maxaa sameynaysa tiwa dareemi kartaa qofka insaanka mar walba in walaalka ay ka hor tagtid oo aad u la cadeysto oo kaliya ama asagoo markaa murugsan ama asagoo faraxsan xitaa waxa laga yaabaa taa wuxuu ka sii qaadaya ziyaada yani qofka inuu wax u sii kordho aad dareemaysid qofka markaa inuu dareemayo qofka garabkiisa taagan inuu yahay qof markaa asaga ihtimaam siinaya guud ahaanba laakiin qosolka ku noqonay dad waxa jiro qosolkooda aan tabiici ahayn oo maanta wuxuu rabaa waxaan caadi iska xitaa inuu ka dhigo wax qosol ah laakiin waxa laga yaabaa qofka markaa soo lagama yaabo god kale inuu gal qofka qosolka duu bato wadna xanuun buu sameeyaa teeda labaad haduu dhaawac gaarsiin yahay dhaawacii buu furayaa waxa oo kale uu leeyahay baleeri inuu qofkii ma aragtay uu حتى مربى وح علاشي بسرقة سبليري سو قصلي بمطقة بل إن سيدا هدا كده واجسي مركب حق فاهمه إن قصل كمان متك اللي يجري كا 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 إيوه متك إيه
ibtisaamada oo kaliya ahayd markaa qofka u dhoola cadeyn lahaa ama u muujin sida camal sawirka hadda ugu dambeeya ka muuqata qofka inuu dareemsiiyo qofka garabkiisa inuu joogo qosolku kala duwan yahay qosol cod leh iyo qosol balaacoda maaragtay ubadka yaryar waxay sameeyaan qosol cod leh dad baa jira qosolkoodii laakiin qosolka maaragtay ugu fiican waa qosolkan uun dhoola cadeynta ta codka yar leh laakiin qosolka dheeraadka kaama fiicna taa waxaa laga yaabaa qofka markaa garabkaaga ama qoslaysidba in dhigaha dhibaato uu ka qabo ama qaylada ay dhibaysaba guud ahaanba markaa qosolka markaa ku dheeraysta laga yaaba qofka meesha rabtay inaad kala kulantid soo dhaweyn iyo wanaag iyo fiicnaan iyo garabkaaga inuu soo istaago laga yaaba inuu kugu xanaaqaba ku dhaho waryaahe maxaad la qaylinaysaa bal soodkaaga hoos dhig guud ahaanba laakiin ma ahan qosolka aan sheegayna midka waa midka ibtisaamada ee markaa diintana Cabdisataaro waxa la yiri qof wala haduu qoslo kamiirka qabaa wuu ku dara hadda qof haduu ku soo garab istaago wuu ku qoslo waxa imanaya dadka kamiirka qabay inay ku daraan bal mid kale aan ku daray hadalka waxaan ka jiray waxa laha Soomaalida guud ahaanba waxyaalaha ay ku maamaado qosana lagu la qabin waa qaraabo goos beenada laga yaabo qof adiga ku ogeen xaqiisa inay soo istaagto ka ku dhaado qofka marka waxa laga yaabaa mashaakil kala haysto asagana kula ogeen qosolkana kula ogeen taa marka waxay noqonaysaa qofka inuu ka fogaado ma inuu ku soo dhawaado kaasoo waa hadba qosolku waa meel uu leeyahay xadid buu leeyahay waxa la yiri qosolka ma aragtay oo aan sabab lahayn edab daro weeyaan si fiican qosolka laakiin sabab weyn u yeeshaa qofku weyn sabab ku qoslaa maaha iska qosolun kaasoo iska qosol waxay sababtaa inuu qofkii ku caroodo qofkii oo murugaysan oo dhageeri ay ku jirto qof intuu imaado iska qoslay inkastoo dad ay jiraan intay naxaan qosla bal waxa laga yaabaa qofka insaanka markaa qosolka markaa badsada qosolka waxaan ka wadnaa qofka inuu dhoola cadeeyo ama qof walba markaa garabkiisa istaagsan ha ahaado hooyadiisa qofka ugu muhiimsan maanta uu qosli karo ee farxadda uu muujin karo waa hooyo laanu markaa hooyo tii lagu sheego waayo waalidiintaada hadhiin lakum yani maxay tahay qofka inuu xaraka yar xitaa oo sameeyo oo muujiyo in markaa uu careysan yahay laanu waalidka markuu ka arko adigoo careysan mise markaa wajigaaga buuxinayo oo markaa dhaafinayo meeshii ahayd qofka insaanka lagu dareemi lahaa inuu nabadiisa iyo caafimaadkiisa u dhameystiran yahay marka ma ahan qofka markaa bidaayadu wuxuu ka bilaabayaa dadka qaar sidaan sheegayaba laga yaabo banaanka markay joogaan asxaabtiisa markuu la joogo qosolkiisii iyo farxadiisii waa ziyaada laakiin marka hooyo iyo aabe iyo walaalo dadkii la rabay maanta inuu u bilaabo u dhaxgalo laga yaabo wajigiisa inuu isbedelo laga yaabo inuu diido howlo yar markaa shaqooyin aad u fudud markaa laga yaabo inuu markaa ka caroonayo ama u diidayo Cabdisataaro dan kaasoo dhaxgalo qofka markuu bulsho uu dhex joogo hadba meeshuu joogo oo naftiisi ay u degan tahay ayaa waxaan ku leeyahay naftiisi siinaysa inuu qoslo inuu bulshaawi noqdo laakiin waxa jira problem qoys oo qosolkan loo ogolay aan farxadda loo ogolay sa dhibaato u dhaxaysa aabiyo hooyadii dhibaatada u dhaxeeya ilmihiyo aabihi ama ilmihiyo hooyadii isfahmi laayihiin uu dareemsan yahay inuu banaanka marka u baxo uu farxad dareemayo laakiin guriga saa xabsi camal uu dareemaya bal waxa la qofka mu'minka ama muslimka ah waxa la kala qeyd yani waa sidii matarka oo kale ama roobka oo kale waxa la حينما نزل يعني ميشو مركا أسجع دجو نفع أي معناها ميل والبو أسجع أوجوجو يعني ومد دتك أنفعه أما دتك أوجد بيا رسالة في عنا أما نبال في عنا مركا قفك أقبلي كرا قفك إنسان كأسجع وحول ببدلي كرا ما أنت هدي لقيا وقوسك لو هتفر بدن هدي كجيران أو كجيرا وقوسك نحديسي لو إن محل دي جيري عرو إيو كلا جيس ودو كجيرو قفك كلية مركا سو اسكو كاني كرا وقفك مركا ibtisaamada badiya oo marka dhoola cadeynta badiya laga yaabo maanta abaay inuu ku xanaaqsan tahay ama abuuw inuu ku xanaaqsan yahay ama hooyo maanta inay xanaaqsan tahay laakiin marka agtagtid awareysatid ee wax yar hadalka ay sheegto u muujisid maanta inuu hadal farxad uu yahay ama hadal wanaagsan hooyo ay ku dhaxday ama aabo markoo laga yaabo shaqo inuu ka imaado dhibaatooyin fara badan banaanka inuu kala soo kulmay adiga marka guriga imaado aabo guriga imaado oo ku arko adiga laga yaabo adiga marka adigoona xanaaqsan qofkii marka banaanka ku xanaaqsanaa gudaha markuu imaado oo marka rafaad iyo dhanka iyo shaqadii ku soo wareeray aabo gudaha markuu imaado adiga xanaaqsan haduu ku arko
qofka muxuu dareemayaa xarij buu dareemayaa xarijka qofka yaa ka bixin karo qofka markaa dhoola cadeeya dareemsiiya aaba maxaa ku qabtaa intee ku geeya yacni qofka cala qalbiyo u keena asagoo faraxsan qoyska wax kale laguma furfuri kare Soomaalida waxyaalaha ay ka liidatay ama markaa dhanka iyo qoyska Amiira dulqaadka ay u daran yihiin xagga dulqaadka inay kala dambeynta laakiin waxaan xasuustaa sheeko dhacday Cabdisataaro taas waxay ka dhacday qoys waxa wiilkii ay ku dhacday baa noo sheekeeyay wuxuu yiri waan yaraa wuxuu ahaa 4 jir wuxuu yiri yani waalidka mid kamid ah ayaa laga baqanayay meeshana meel baa lagu wada cunteynay dhamaantood wada aamusay dhamaantood way aamusan yihiin aabihii waa laga baqanayaa yani aabihii baa laga baqanayaa ubadkii aayar bay wax cunayeen aabuhuna jirin ka eegay waanu caraysnaa ilmihii 4 jirka ahaa oo ugu yar xaafada ayaa yaabay wuxuu ka yaabay ummadii awal hadli jirtay aan maanta hadlo aamustay shib marka wuxuu bilaabay inuu qoslo wuxuu ka qoslay walaalkiisii ugu weynaayo meesh madaxa faro aayar cunayo baqanayade wuxuu qoslay aabihii baa dhirbaaxay markuu ku dhuftay ilmihii inuu ooyo samaha uu ka sii daray uu qoslay aabina aad buu caraysnaa hooyadii way qabatay wax tir wariya qoslin aamu mar saddexaad wuxuu yiri qosl baaban ka sii daray xaafadii ummadii oo dhan baa way yaabtay lix tagtay xataa walaaladii baa way baqanayaan waxay raadaan kalmuu waashay maanta waabuu ka sii daray aabihii caraysnaa uu ku daray uu qoslay xataa caruurtii baa qosashay wuxuu bedelay jawigii guriga oo dhan يعني waxaa sheekadaada dabcan markii qofka gaar ahaan loo fiiriyo taa waxyaalaha kaliya qoyska Soomaaliga ah lagu bedeli karo arinka iyo ibtisaamada ama qosolka marka cuntada la wada cunayo ama hal saxan la wada fadhiyo Soomaalida sidaan ognahay badanaa cuntada kaliya uma badna waxay u badan yihiin cunto marka jamaaca lagu wada cunaa ama la wada fariista laga yaabo laakiin aabo badanaa marka inuu mashquulsan yahay oo shaqada ku maqan yahay guud ahaanba oo habeenkii oo kaliya imaanayo ama dhalinyarta ama caruurta ay joogaan guud ahaanba guriga ay joogaan laakiin markii saa camal jimcihi camal meelaha la wada fariisto qofka waxa la rabaa waalidka in la dareemsiiyo qofka maadaama waalidka waalid uu yahay gartiisa Soomaaliya waxay dhahdaa gartiisina waa gardaradiisina waa gar laga yaabo qofka in ra'yi aabo kaga soo horjeesto laakiin ma ay ra'yigiisa inuu aabo ku gacan saarayo oo dhulka la galaayo ma aha oo inuu muujiyaa احترام رأيجيسنا وجود بيا سي طريقة مركا مسموح أما وناكسن قفكا وكل دريم كلام عابا وقابل كلام سي هذا كشيء كيسي ويل كهير يعني وحكوا بدل الجبيجة سي فود يعني ما أنت لغاية رباحير إنك يقول عض أنا الوحوين إهين لكن عقدد إياه مركا كوجش بلاي حول مركا كوجش لغاية وحكى لنا أبد تشيدو وبدك لنا لجام قادم لكن ما أنت قوسك وإنك بلاودا فرحة وجوه رئيس قفك وكبلاو قوسك لأنه قوسك كحق له مركا هو وجود أهم بفرحة إياه ميرول بلوجو قينه بل إن وهجك إن داوديال أرنك إياه قصلك إياه فرحة إياه ولا شيء أميره ما أنت هالكان هو كأنه محير قصل هذا كشيء كأنه ما هن بتصير ما عندوني بل إن وهجك قدري رحيس إن داود السلام يا وقرا صعبدا سفك عيدا كينا حكا قلبك نسيدا كالشنقر يا عيدا صومالي دهور دايسا بليني سوجي سادا كنتي صلباقا صومالي دينو اسكو ودا سفريسو صدق ودا عونيسو سلام وي ويحياك ساكر سلولها سلام وي ويحياك ساكر سلولها daawadayaal kusoo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad qaybta ciyaaraha iyo jimicsiga maanta waxaan ka hadlaynaa ciyaaraha Cabdisataar maxaa noo haysaa guud ahaanba sidaan ognahay ciyaaraha marka rabnaa inaan ka sheekeyno waxaan ka bilaabaynaa dhanka iyo
wadankeena Soomaaliya ama qarankeena Soomaaliya ee guud ahaan markaa u hambaliyay siyaasiyiinta guud ahaanba ee markaa awoodda ku leh Soomaaliya gudaheeda ka bilow madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markaa u diray dhambaal ah oo guushii ay ka gaareen dhanka iyo wadankii markaa la ciyaareen dalka Soomaaliya isreebkii ugu horeeyay dhanka iyo qaranka adduunka guud ahaan bay lagu dheeri doono dalka Qatar ciyaartooyda oo soo bandhigtay markaa ciyaar aad u wanaagsan kadibna ay ku badisay gool iyo eber markaa qaranka Soomaaliyeed sida hadda aan dareemayno waxa ka muuqato kalsooni isku xirnaansho iyo markaa inay doonayso inay hor u socoto guushaani waxay ku soo gaartay meel markaa ka baxsan wadanka marka waxaan filaynaa qaranka Soomaaliyeed waxaan u rajaynaynaa ama dhambaal ugu dirayna dhanka iyo aniga TV New Africa qaybtiisa afka Soomaaliga ah waxaan leenahay guul wacan baan rajaynaynaa anaga markaa xaysiinino ama markaa xaysiin fara badan hayno ama maxaa la jiraa inay qabno farxad iyo wanaag fara badan markaa niga rajaynayno guulo fara badan inaan ka gaarno ka dhaxgalay maani hadda markay gaareen maani ka qayb galin karin ciyaaraha Afrikada soo socda bal tan hadda ugu ciyaarayaan ama la tartamayaan balti Afrika way ka weyn tahay waa midda adduunka guud ahaanba markaa ka wada qayb gali doona sida rajaynayno ciyaartii ugu horeysay ee wada ciyaareen waxay muujiyeen Zimbabwe kaga badiyeen 1-0 marka xulka dalka qaranka Soomaaliya waxaan u rajaynaynaa marka guul iyo horumar wacan bal han u wareegno dhanka iyo qaybtii kale ee ciyaartooyga marka asagana muujiyay inuu yahay ciyaartooy muhiim ah mar walba kooxda ka dheelay sidaan ognahay ciyaaryahankii hore ee reer Holland asagoo markaa ka hadlay ciyaaryahanka hadda tagay ama ku sugan magaalada Catalonia dalka Isbaaniya Dijon ayaa wuxuu sheegay in maanta laga gaabiyay qaab ciyaareedka uu ciyaaray guud ahaanba markaa asagoo ku dhoola cadeeyay dhanka iyo Valverde aanan siinin qaab dhameystiran ama garabka markaa asaga ciyaar laha guud ahaan ciyaartooygaani hadda sidaan ognahay Van Gaal uu ka hadlay ciyaaryahankan uu ka hadlay guud ahaan mar walba waxa dareemaysaa meesha inuu ka jiro hoos u dhac ama ciyaaryahanka la doonayo in ciyaaryahankiisi ama xirfadiisi aqooneed markaa uu ku fiicnaa dhanka iyo qadka wasadka ama qadka dhexe guud ahaan markaa dib loo dhigay markaa waxa uu rajaynayaa ciyaartooygan asaga inuu heli doono garabka markaa fiicnaa sidoo kooxda Barcelona oo guul wacan ugu gaarsiin lahaa sanadkan maadaama la soo wareegay guud ahaanba bal ha u gudubno suurada kale ee ku xigta ciyaaryahanka markaa asagana u dheela dhanka iyo Spain asagoo markaa sheegay guul fiican ka gaaray dhanka iyo isgadinta sidaan ognahay shaashada waxa ka muuqda Arsene Wenger oo ah tababarihii hore kooxda Arsenal asagoo markaa ka sheekeeyay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo sidaan ognahay Lionel Messi iyo Cristiano Ronaldo waa labada xidig ee adduunka markaa ugu laacibsan guud ahaan loo doortay waxaana loogu doortay maadaama ay qaadeen 5 mar ay kala qaadeen kurada adduunka guud ahaan ay bixiso France Football asagoo sheegay Arsene Wenger waqtiga 2003 rabay inuu la soo wareego ciyaaryahan Messi markaa ka garab ciyaarayay Cesc Fabregas oo markaa la soo wareegtay Arsenal ayagoo ku wada sugnaa kooxda Catalonia ee Barcelona kadib ay ku gacan saartay kooxda Catalonia asagoo kadibna sheegay Cristiano Ronaldo naftirkiisana asagana rabay inuu soo qaato maxaa yeelay tababarahan wuxuu ku caanbaxay wuxuu mar walba tixgeliyaa ciyaartooyda yar ee ka ciyaarta guud ahaanba xulalka kale kadib marka ayagoo yar xirfadooda sidoo la soo wareego kadib tababar fiican oo siiyo kadibna caalamka ay ka muuqdaan sidaan ognahay ciyaartooy fara badan marka uu soo saaray hadana caalamka ka muuqda sida hadda aan ognahay tababaraha Thierry Henry oo marka ahaa ciyaartooy u dheela kooxda Arsenal ama The Gunners oo soo saarayna tababarahan hadda u jeedno guud ahaan ay u dhashay dalka Faransa ciyaarta ama ciyaaryahanka ugu dambeeyay dhanka iyo u dheela dalka Spanish Sergio Ramos oo marka asagana gaaray soo bareejiyay ama soo barbar dhigay ciyaaryahankiisii la dhihi jiray Casillas marka inta kulan oo wada ciyaaray marka dhameystiray asagoo Ramos ku daray captain Ramos asagoo ku daray captainka kooxda Real Madrid iyo captainka xulka qaranka Spain asagoo oo sheegay in uu gaari doono oo uu ciyaari doono kooxda Isbaaniska 200 ciyaarood asagoo markaa rajaynayo taa inuu gaaro maadaama da'diisa hadda gaartay 33 jir bal Amira ciyaartooyda iyo rajada leeyihiin soo lama dhihi karo qof walba maanta hamigu leeyahay uu gaari kara ciyaaryahankan da'diisa waa 33 jir sida darteed asagoo ahna wuxuu rajaynayaa inuu dheelo 200 xulka qaranka inuu dheelo maadaama xulka qaranka ciyaaro fara badan ay dheelaan soo lama dhihi karo marka dhanka waxa ka muuqata awood fara badan inuu muujiyo guud ahaanba
waa runtaa awood fara badan inuu muujiyo qof kasta waxaa u fiican hamadiisii inuu ama yani inuu gaaro wuxuu isagu talagalay waayo qof hadduu leeyahay maanta 200 ciyaarood ban ciyaaraya oo niyadiisa uu qabtay inuu qabto uu qabanaya taasoo qadarada Ilaahay aanay ka horeeyaan waxa dhici kartaa inaanu ciyaarin xataa laakiin waxaan 33 jir 200 ciyaarood oo ay jajab ay leedahay ama dhaawac ay leedahay ciyaaraha maana khatar aanay ku ahayn Cabdisataar hada ciyaaraha iga xeel dheer bal si kale marka u fiirino ciyaaryahankan waa ciyaaryahan muhiim u ah dhanka iyo kooxda Real Madrid ee marka la qaaday 4 koob oo marka Champions League asagoo marka u sida ishaaradii kabtanka inkastoo kaga horeeyay kabtanka ciyaaryahankii marka asaga hadda la barbar dhigay ama ciyaartii oo marka inta ciyaaradu dheelay Casillas marka kabtan ahaan jiray ka hor asaga laakiin ciyaaryahankan waa ciyaaryahan sidan ognahayba marka leh qudrad aad u fara badan laakiin da'diisa maadaama 33 sano jir ay tahay wuxuu rabaa inuu si dhameystiro inta uu hartay waxa laga yaabaa inta uu hartay kama badna 40 ciyaarood ama 45 ciyaarood intaas uu hartay marka asagoo rajeynay rabo inuu gaaro 40 ciyaar ama 45 ciyaareed laga yaabo inuu ku qaadato 3 sano 4 sano laakiin yani kartidiisa iyo qaabka uu soo bandhigay ama qaabka uu doonayo inuu rabo inuu gaaro waa qaab aad u muhiimsan taasina waxay risaalo u tahay ciyaaryahan walba ha ahaado Soomaaliya ama Afrika ama Aasiya ama ha ka dheelo Europa ka dheelo waxay risaalo u tahay ama dhambaal u tahay qof walba inuu leeyahay guud ahaanba sidan ognahayba waxa kaga horeeyay hadalkan Cristiano Ronaldo asaga iyo Messi markay wada fadhiyeen garabka guud ahaanba oo ka sheekeeyay rabay Messi wuxuu dhahay kaga ma tagay korada kaliya kaga ma tagay maxaa yeelay sida markii loo fiiriyo wuxuu ka weeyay 3 sano oo ka weeyay laakiin wuxuu ku dhahay ilaa 4 sano hadda wixii ka dambeeyo waan kula ciyaari doonaa wuxuu dhahay kaga ma tagay saaxada kaliya si kaliya lagu sheesheeyay la dhihin Messi laakiin waxa la dhihi doonaa Cristiano Ronaldo iyo Messi marka dhanka iyo jumhuurka marka ka soo qayb galay ee marka lagu qaybinayo koobka ciyaaraha ciyaaryahanka ugu fiican ee Yurub marka dhanka iyo qosol iyo meesha ay ka muuqatay Cabdisataar sadogtay Ronaldo ayaa marka faysahaan u aragtay ka yar Messi Ronaldo marka hadda ugu dambeysay oo la soo wareegay ama la soo wareegay kooxda Juventus cumrigiisa wuxuu ahaa 33 jir ah laakiin markii miisaanka la saaray ama guud ahaan jirkiisa wixii la fiiray waxa la ciyaaryahankani da'diisa waxay la mid tahay inuu jiro 20 jir ah yani ciyaaryahanka 20 jirka ah iyo Cristiano Ronaldo markii meel la isla dhigo waa nafsi ciyaaryahankii asagoo socda taa marka waxay cadeynaysaa ciyaaryahan Ronaldo asagoo marka Diego Costa maxaa la jiray laacibka Costa ee dalka Brazil oo dhashay marka garabka midig ama garabka bidix ka ciyaar asagoo sheegay Ronaldo ama qaabka ciyaaryahanka wuxuu yahay ciyaaryahan markii tababarka dadka dhameeyaan ama dhameeyaan ma aha mid iska sii baxa waa mid ku laabta tababarka asagoo marka cadeynaya jirkiisa iyo lafihiisa iyo qaabka marka la tafaaculayo manahan ciyaaryahan isticmaala dareeriska fara badan isticmaala sida darteed asagoo 33 jir ah dadka waxay ka baqayaan inuu ku qaado afdal laacib ama laacibka adduunka ugu fiican asagoo 40 jir ah maxaa yeelay ma aan ciyaartooyda waxa jirta ciyaartooy adduunka iska soo marta fara badan ee mahari ama maxaa la jiray gambiska iyo gooska si fiican ugu fiican Ronaldo wuxuu isku darsaday goosmo shoot igol dhaliya oo raas madax ah marka guud ahaan waxa dareemaysaa qofka marbo hamigi asaga rabo inuu gaaro wuxuu ku daysan karaa ciyaaryahan Ramos oo marka asaga cadeeyay inuu rabo inuu gaaro 200 ciyaarood guud ahaan xulka inuu dhameystiro iyo Cristiano Ronaldo marka asaga sheegay soo lama oran karo 200 ciyaarood wax ku gaaray isagoo ku tan jira waa dareemi kartaa qofka insaanka marka oo indada soo gaaro badana ciyaaryahanka kooxda uu iska iibisa ama uu sii gudbisa badana waxa soo qaadata dalalka Carabta marka dalalka waxay iska taagtay dhanka ciyaaryahanka ama ciyaaraha aanan ku fiicnan guud ahaan tababar bay ka dhigayaan mise uu ciyaaraya bal tababar kama dhigayaan ciyaaryahankan maadaama Yurub uu ka dheelay waa ciyaaryahan magac leh naadi walba uu tago caalamka ka ciyaara naadiga magac buu yeelanaya wuxuu yeelanaya maxaa la jiray wuxuu qabsanaya daayada ama guud ahaan islaamka ama maxaa la jiray baahintu qabsanaya maxaa yeelay waxa la leeyahay naadi hebel ee ka dhisan dalka Carabta ama dalka Afrika ama Aasiya dhanka ka dhisan waxa uu imaaday ciyaartooy hebel ah oo marka ka ciyaaray Yurub ka soo ciyaaray magac ku lahaa iska daayba Ronaldo iyo Messi haday gudbaanba waa ciyaartooy marka oo guud ahaan qof walba waan rajeynaa inuu u tago laakiin saas darteed marka qofka wuxuu ku yeelanaya ama naadiga wuxuu ku yeelanaya magac weyn buu ku yeelanaya la ajli ciyaaryahanka dartiisa u soo wareegto guud ahaanba daawadayaal sidaan ognahay guud ahaanba ciyaaraha sidaan ognahay halkaan bay nagu egtahay bari iyo
ciyaaro dambe ama ciyaaro cusub insha Allah iskugu imaan badno bal waa hagaag daawadayaal sida iyo nabadgeliyo yaa maana alleh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.